waqtigan yar way marnaa waqtigu hijradu sanadkan 1406 baan bilownay sanadkii hore maanta maalinteedii 5 baan bilownay 4 3 2 30 waan soconaa maxay ka dhigan tahay waqtiga in yar jecelahay inaan saddex kalmood isma ka dhado walaalayaal qofka bini aadamkii qof kasti oo adduunka jooga qofka horumar gaaray ee ku nool wadanada horumarka xaqiijiyay Mareykanka Canada France Greece Jarmalka Denmark meesha doona ku noolaado Hong Kong wuxuu haystaa 24 saacadood wuxuu haystaa qofka Djibouti ku nool Soomaaliya ku nool Yemen ku nool Suudaan ku nool Bahrain ku nool meelaha hurdana 4 saacadood haystaa isku mid ma waqti ilaahay noo kala yaxan midna wala masiin ku saacadood midna lama siin saacadeer ilaahay noo kala yaxan isku mid buu nasiiyay waqaf walba waxa la siiyay 176 saacadood sameenkii usbuuci nin walba anaka inaga mid inta waan haysanaa qof walba adduunka jooga meeshu doonay joogo wuxuu haystaa 8706 saacadood 8706 saacadood sanadkiiba sanadka dhan inta waan haysanaa waa doon يا إنسي الله سبحانه وتعالى والنعمة إلهي كسية إلهي باري سبحانه وتعالى إلهي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا إلهي وحوري هبين يا درارتو إلهي سدبوضا لماذا هبين بايمن درار بايمن دادكو حيقولين وهبين ودرار وهبين ودرار وهبين وهصدا هبين كنا معنوس ده درارتنا معني سدا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا إلهي وحوري سبحانه وتعالى إلهي هبين درار بو أبوري محو أبوري درارتي هبينك لتسكنوا في صد هبينك لو ساعتان درارتي نضوش قيسان ليس كما أبوري هبينك درارتي ولذلك إلهي سبحانه وتعالى مركع علمضو كهليان وقت مركع كهليان نبا لقيل وقته محويه قفكم محويه عجيب وحوري وحنا كن معنين كرنابا قفك بني آدمك إنه وقت قويه الإنسان هو الزمن إنسانك هو وقت بقى قفك بني آدمك ادخل إيمانه إنسانك هو وقت بل لما وقت جاي إنسانك لا صار محمد جنا وفيد مركب وقت الأركو قف الأركو يا نور الأركو يا لكن وقت بلا قفة نور الماء قف بلا وقت أنا نور الماء ولذلك علماء واحد هذا وقت وحوي وحيال الوقت خصائص بني آدم كيف يزوينه إن رافع صار وقتي اللي هو إن ضد بس فرحة يوم سنة جديدة سنة العصب واي وفرح سنة ما فرح وإن قرت وقته قيمها أوليه إسلامك أكيد سسوي له وقول نحن عصر وقته ووحير وندرة ما رتقف ولا ما هيستو ضد دوري وقتك وكله يا يقدر وقتك صد ساعة يا فرط ساعة سيانو إنتاجه برودكسيون سمية قارنا واحد يقولين وقتك دلينا معاكم دلينا ترب وعيارها مارتي وحنا لقى فعلا meel bohor fadhiya waqtigii wuxuu iska diray wax ma akhrinayo wax ma qorayo wax ma baarayo wax ma soo saarayo wax ma sameeyo reerkiisa ma anfacayo cibaado kuma jiro waqtigu iska khasaaranaya mid waa kaas midna wuxuu leeyahay waqtiga ay balaadheeba labo waqtigu ma aqbala in la kaydiyo ma kaydin karno 1450 kiina dhaafayka ma soo celin karno kayd ma aqbalo lacag waa kaydin kartaa $1 meel baadhay kartaa 200 meel baadhay kartaa 3,000 فرن ميل بعدين كرتا سنة كدام كدري كافرات با كدري واحد ونسى والله ما كبارو يسكر يا لكن وقته كم كان سميه ووح قيمة لأنكيد كأقبلين لبا وقته ما بيرو من الله ما في ذين كرا وقتها الله هذا شقينا يا هذا وقتي كاسو قاعد بلان ترى وتجيهم الله ياي بلاني لهم بلاني كرا وقتي وعدمه ما قد وقتي كتذكره لما يبين كرا وقته السوق اللي ويا لما جرو ومثلا مجازات كتاجشت عم بيتاجشت كان مو نكرت المحاضنة وقتي لا ما يبين وقتي قف كايبري مجرو هادو ملكومود كيمادو كرادو وكا دماده ان لو ساعه يقول دار ما جرتو وقتك اسغنا ايب ما غلو ولذلك علماء waxay oran jireen اضاعه الوقت اشد من الموت وقتك oo dulumisid way ka daran tahay geerida لماذا لان اضاعه الموت انقطاع عن الحق hadad موتku waqtigu ka tago اضاعه الوقت waqtigu haduu ka tago waxa weeyaan waxa ka tagay oo ilowday oo ka go'day xaqi waqtiga salaad ku leeyahay waqtiga soomi lahayd waqtiga quraan akhrin lahayd waqtiga digri sameyn lahayd waqtiga wax dhisi lahayd waqtiga guursan lahayd waqtiga ciyaar tarbiyadin lahayd waqtiga maarta shaqo tagi lahayd waqtiga wax qori lahayd waqtiga wax akhrin lahayd waqtiga dadka wax bari lahayd waqtiga dhoofi lahayd waqtiga seexan lahayd wixii oo dhammaad iska hadlaysid xaqi wada hadlaysid ilaahay xaquha ولذلك وحده والموت انقطاع عن الخلق موت كنا ما حي خلقي ما كقوضي
لكن حقي كما قوين خلقها تقول ما كيف خطره هذا وقت هلا يا خطره ولذلك إلهي وحده ويوم يحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم وقت وين يمكن أن دلينه قيامها إلهي عمر كان صواب حنون حسابنا يو وحنمودنا إنسان نولد ساعة قرى ولا سوى قرن يابا وصاحبك علي وفتحية وجامع وأديرك وأبتك وسوى قرن سيمبا كأنه شلا كسعتي وما تسرعتين يتعارفون بينهم سابوا إلهي سبحانه وتعالى ولذلك أيها الإخوة وقت قدتكم مركا آد اكتسوا فايديستان ولا بقلوا الناس أمام الوقت صنفان ولا بقلوا سفيه وعاقل إيه وحاجة من سفيهة وضقرة اللي وقت هو قيمة ما له كسر ريا قالوا وحنا الوقت من ذهب وقت هو ذهب قالوا احنا الوقت نقود وقت هو العقب هذا تابو لا وقت هو العقب هذا قالوا احنا وقت هو ماس لكن الإسلام يقول وقت هو نضل وقت هو كسر ريا وحاصل ولذلك هدان وقت يكدنا وح ugu qiimo weyn dadkiina aan laba qaybino maxay kala yihiin safiih iyo aaqil nin doqona oo safiiha maadaama ilaahay wala tu'tu sufhaa amwalakum wadinka safiiha waxa lagu sameeyaa waxa dhacdo xijri lacagta waa laga celiyaa waa laga joojiyaa lacagta waa loo ilaaliyaa qofka safiiha waqtigiisa ku ciyaaraya ka waran ee hurdo uun ee ciyaaraya uun ee qoslaya uun ee waxba aan qabanin waqtigiisa waa safiih ka aaqilkuna waqtigu waa wuxuu garanayaa inuu yahay waxa ugu weyn ee in la istismaaro ah la maal gashada ah oo la infaaqin oo la bixin lacagta waa la bixiyaa si xoolo ku noqoto laakiin waqtigu lama bixiyo isaga waa la istismaarsadaa soo istismaarsanaysaa waxbaad akhrini waad qaybinaysaa waqtigii waxbaad akhrini waxbaad baari waqti waad dadka ziyaarani waqti waad masjidka tagi waqti waad quraanka akhrini waqti waad ciyaalka tarbiyadayni waqti baad seexani waqti baad shaqo tagi waqti baad maaragtay aqalka aad u adeegi noloshaadii oo dhan baa qaybtan ma aha inaad labada fadhiisatid majlis oo tirsan ka ciisa halka habeen oo sagaalka habeen ma adoo marqaan aqalkii tagtid oo ciyaalkiin isgaran weydeen ciyaalkii hurdana shaqo tagtid ciyaalkii hurdana ku soo rawaadeen waa khatar taasi waxa loo jeedaa waqtiga in laga faa'iideysto ayaa muhiim walidaalika islaamku wuxuu isticmaalay afar kalmadood oo qurux badan labana quraanka isticmaalay labana xadiiska isticmaalay laba quraanka isticmaalo wuxuu quraanku isticmaalay waxa dhado المصارعة هي المسابقة إلى وحولي وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة إلى وحولي وصارعوا برتمها وقتها ولا برتمها لما قرب صعود وقتها ولا برتمها البرتم بإلهي ما هو برتم يزيد جنة بل أركيه والسماد اللي يدي مدافع برتمها آيات كله مسابقة وسابقوا وقتها لا أرضمها وكوا بضيبة مسابقات وكبدي وقتها تنوى اللبرتم يسي ولا دق يسي تنوات كأرض بدنا يساب وقتي بدافع والسابقوا قرآن كلمة كانوا استعمالها جرت في سورة المطففين إلهي مركو الجنة قصوا الشكية وفي ذلك فليتنافس المتنافسون دتكو هبر تمام بإلهي أو الجنة هو بر تمام هيلو بر تمام ما آخره حلو أدونك حلو بر تمام قرآن بالغو بر تمام صلاة بالغو بر تمام صوم بالغو بر تمام حج بالغو بر تمام زكاة بالغو بر تمام وحوا عبادات شعرتي صلة الرحم بالغو برتمي والدك ولا عديعة لغو برتمي وبدك ولا تربية لغو برتمي اسكول الدكتور تعليم ما في على لغو برتمي حولها المسلمين ولا بحياة لغو برتمي عدالة بالغو برتمي حرمر بالغو برتمي نورش وردن هي لغو برتمي مركا يتنافس المتنافسون وشمولية الدين دين وشامل وهلا برتمي مركا القرآن هو حاب استعماله نبينا محو استعماله عليه الصلاة والسلام نبينا محو استعماله كلمة الاغتنام اغتنم خمسا قبل خمس اغتنم وحاجتها وارك جارسي وقت هو فرصة اغتنم فرصة بس تمام بليها ودين كجارسي لا تؤخر عمل اليوم إلى غد اغتنم قرمة حياتك انت نوشاي قبل موتك انت دمن شبابك انت جنتاي قبل هرمك انت دقوب وهذا وصل دورك سوق العسمينو مسكيتك باتي كيلو وحبا قبسك كيلو اوكي فراغك انت الوقت يزتد قبل شغلك صحتك انت العافيه قبتد قبل سقمك انت بكون اما سقمك غناك انت ضحوليستد قبل فقرك انت نتجاجل اذا واغتنم نبي يغتنم بتابك حديث كان وحو كيري احذر من الغبن انه وقتك وكبابك اسك الهي نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس لما نعمدون ان فربدون ضدك مشغول بك يوم هيان الصحه عافيماتك والفراق هي مركا اي فارق يهيد waxaad arkaysaa qof dhan oo muslim oo iska noolo
وعافمات قبو وحبا قبنين لكن أيانتا لقبتو كليدا لقا قبنيا أرو لها يا ما أنتو دريمي عافماتك هاكم با لقا قبتي مدحا لقا قبتي صدن سنة أفرتن سنة جيكتا هاي صد نوليد ما تقرنين لئن شكرتم لأزيدنكم لكن أيانتا لو قبتاد لا ده لا waxaa kaloo la mid ah faraaqa qofku haysto waqti badan buu haystaa ma faa'iidsanayo ayaantu mashquul noqdo oo ciyaar ku soo baxaan ay tacliin ku soo baxdo oo ku soo baxo allah soo kala qabtaa maxaa yeelaa yaa waqtiga balaadhiya hore ma soo faa'iidsadee waqtiga baa ka yimid yaa ku soo celi waqtiga oo adiga inuu soo cisho marka inaad ka gaarsiiyo rasuulku sallallahu alayhi wasallam waqtiga ka gaarsiiyo saasa la amraya waxaan ka baxaynaa saddex kalmadood oo aqoon-yahano waaweyn ay dhahdaan sheekh al-imam al-hasan al-basri rahimahullah محمود الحسن البصري وحولي ما من يوم ما مجرته ينشق فجره واقيس ودلاعيه ما مجرت أدوك واقو ودلاعيه إلا وينادي ودواقع مالتاسي محمود يا ابن آدم إن آدنو أنا خلق جديد أنا وحانا هاي خلق عصب محان خلق عصب أنا هاي ما أنت لي أبوري هو الشرع ومجرين ما أنت سند كني وسند عصب ما أنت العصب هاي أوكي وعلى عملك شهيد شقد أتقبلني سيدنا مرق بانكاهي فتزود مني إقص هاي قالوا فإني إن مضيت هدان الصعدة لا أعود أبدا إلا إلى يوم القيامة ما صنع قرية قيامة ما صنع قرية ما دام قيامه يركي دون تدين نجري إمي كي يقفى ينسوكو ليه هذا الكايالي حسن البصري بعد نينك لا حتى هذا عينك أقول بلوحوري يا ابن آدم إنما أنت بضعة أيام إن آدنو أدو حتى هي بدور 10 زمن باتاي فإن مضى يوم هذي مال نسعته قد مضى بعضك بركة ما صعدي بركة كيف يسوع ضدك النهر وحي ورنجرين سابوا إلهي وقدرت وقتها والعصر والفجر والليل والنهار والضحى وحاس أورنا محي ووقت يقول لقوقوي وحا لقو دارانيو إلهي بقدر سبحانه وتعالى برنارد شو فيلسوف الأوراني أوروبيان وحيلي التقدم إنه قفكو هرمر قارو أو بروغري حقيقيو mid keligiiyo individuala amba mid familiala amba mid sociala amba mid economiya amba mid dawlatiga inuu xaqiijiyo qofku waa mustaxiil bud ma dhici karto biduuni tagyiir hadduu isbedeli waayo oo waqtigu bedeli waayo zamanku bedeli waayo hormana samayn karayo ulaa'ika alladhiina laa yastadiicuuna tagyiira cuquulihim laa yastadiicuuna tagyiira ayi shay kuwa aan caqligooga aan bedelin mentalitogooga aan bedelin ee waqtiga si ula shaqeynayaan aan bedelin ee mabaadiida aan bedelin ee afkaarta aan bedelin ee dhaqaalaha aan bedelin ee sukuuniyiinta ee istaagay waxma bedeli karaan waa mustaxiil buuli Bernard Shaw filosofki weynaa Alexis Carrel ninkii jadid xayaata ka qoray noloshada jadiidi ee Mareykanka ahaa isna filosofka ahaa wuxuu yiri laa yastadiicu ar-rajulu tagyiira nafsihi qofku ma kara inuu naftiisa bedelo oo isagu isbedelo biduuni alam isagoo oonan dhibaatoon waa inay dhibaato ku soo gaadho waqtiga isku qiimee nolosha isku qiim isciriri hadda sida yeli weydin isma bedelaysid buuli fahuwa nafsuhu qofka un baa rukhamo markaa masaajida gashiin quruxda badan leh ee Turkiga ku yaala ama Qaahiro ku yaala ee rukhaamka lagu qurxiyo ama masjidka xaramka rukhaamka waa laga shaqeeyay rukhaamkaas oo looga shaqeeyo iyo nafta looga shaqeeyo nafta waa la lisaa fa anta nafsaka rukham wa anta nafsaka nahat buuli adiga un baa isdeeri kara oo rukhaam iska dhigi kara adiga un baa isduliyin kara waqtiga waa inaan markaa ka faa'iideysano waxaan ni rajeynayaa ummadda reer Djibouti ee nool 1436 ummadda af Soomaaliya ku hadasha ee nool 1436 ummadda islaamka ee nool 1436 inaan sanadkan aan istaagno oo is xisaabino amalka ugu weyn ee la sameeyo markuu sanad dhamaanayo oo sanad bilaamayo waa muhaasaba waa la xisaabiyaa xisaabina ma dhici karto bila muraajaca in la is muraajaciyo waxaana la muraajaciyaa afkaarta waxaa la muraajaciyaa waxaad ku qanacsan tahay ma sax baa mise waa khalad waxaa la muraajaciyaa qalbigaagu ma sax baa mise waa khalad waxaana wixii lagu muraajacayna waan haysanaa waxyiga ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo kitaabka sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam aan ismuraajacayno aan isxisaabino ilaahay wuxuu jecel yahay nafta isxisaabisa laa walaa uqsimu binnafsi allawaama ay alatii taluumu saaxibaha ilaahay wuxuu jecel yahay qofka isxisaabiya xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu wazinuu acmaalakum qabla an tuusana calaykum aan isxisaabino annakoo inaan faraxno un maaha farxadda waxaa ka horeysa hamrugoono aamaal baan leenahay ficlan isbaaro aalaamna waan leenahay dhibaato alamka abuura amalka mushkiladda aad ku jirtid baa abuurta isbaarka lowla alam hadday dhibaata jirin dadku isbaar meesheen hadduu cudur jirin
caafimaadka lama jeclaadeen hadday gaaj jirin dharaga lama jeclaadeen hadduuna khilaaf jirin midnimada lama jeclaadeen haddayna jirin maaragtay addoonsi xorriyadda lama jeclaadeen haddayna dhaqaalo xumi jirin dhaqaalo fiican lama jeclaadeen hadduuna jirin dictateer xorriyadda lama jeclaadeen waa saa bay nolosha kasoo horjeedaa marka alamka iyo dhibaatada waan ka baxsanaynaa waxaan u baxsanaynaa amalka waxaan rajaynayaa 1437 sanadkaa sanadkii annagoo wada nool ولكن سيدنا ما تنهي كونكسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته